xildhibaanada golaha shacabka ayaa isugu yimid xaruntan tababarka booliiska ee Janarka Kaahiye oo ka furmay kalfadhigii shanaad ee golaha shacabka kaas oo sida dhigayo dastuurka kumeelgaarka ah u furo madaxweynaha dalka oo qayb ka ah madaxweynaha oo la hadlay mudanayaasha baarlamaanka ayaa kala hadlay arrimo dhowr oo ay ku jirto arrinta ammaanka oo uu sheegay in dawladdu ay siisay ahmiyad gaar ah iyo baahida loo qabo meelmarinta shuruuc uu ka mid yahay sharciga la dagaalanka argagixisada iyo kan xaqsiinta ciidanka dawladda waxaan sidaan hore idinku ballan qaaday oo naga go'an inaan siino amniga ahmiyadda ugu weyn amnigu siyaasad ma galo waana mas'uuliyad wadareed qof walba oo muwaadin ahna door ayuu ka leeyahay intay rabto hal ekaato dhinaca hirgelinta sharciyadda labadii sano ee maamulkaygu jiray waxaan saxiixay 2 sharci halka 29 hindisasho sharciyeed oo kale ay hor yaalaan labada gole ee baarlamaanka in ka badan oo ka mid ah shuruucdaasi waxay muhiim u yihiin hirgelinta hawlaha dawladda siduu gudoomiyaha u sheegay la dagaalanka argagixisada la dagaalanka musuqmaasuqa sharciga maamulka maaliyadda iyo xaqsiinta ciidamada oo aad iyo aad muhiim noogu ah sidaas awgeed waxaan si xushmad leh labada gole uga codsanaynaa inay dedejiyaan hirgelinta iyo ansixinta sharciyadaas madaxweynaha ayaa ka hadlay wada shaqaynta dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah oo uu sheegay in meel wanaagsan ay marayso waxaana uu soo hadal qaaday wada hadallada dawladda Soomaaliya iyo Somaliland oo uu sheegay inay ka go'an tahay in laga miro dhaliyo waxaan naga go'an inaan ka miro dhalino wada hadallada maamulka Somaliland iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya si xal waara loogu helo tabashooyinka walaalaheen Somaliland waa dad walaalaheen aan jecelnahay oo aynan kala maarmin waxaan ku bixinaynaa dadaal dheeri ah midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed si aan uga baxno dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ee ku jirto waxaan u diyaarnahay inaan si waafi ah uga garawno tabashooyinkooda walaalaheenna reer Somaliland siyaasadda arrimaha dibadda iyo maruu ka hadlayay madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in dalalka caalamka iyo kuwa dariska ee Soomaaliya ay la wadaagto xiriirka uu yahay mid ku qotoma xiriirkooda iskaashi iyo dan wadaag balse waxa uu sheegay in marka laga hadlayo qadiyadaha badaha iyo dhulaha Soomaaliya ay tahay mid aan gorgortan laga geli karin siyaasaddeena arrimaha dibadda waxaa saldhig u ah in Soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato wadamada caalamka iyadoo iskaashigeedu ku qotomo ilaalinta waxa ugu horeeya iyo waxa ku xiga iyo waxa saddexaad ay tahay danaha qaranka Soomaaliyeed aysan waxna ka hooseyn waxna ka dambaynin waxaan shacabka Soomaaliyeed aan u xaqiijinayaa inaan had iyo jeer u taagannahay ilaalinta midnimada madax banaanideenna iyo ilaalinteena xuduudaheena dhulka badda iyo cirka dib u heshiisiinta iyo arrimaha doorashooyinka ayaa ka mid ah waxyaabihii uu ka hadlay madaxweynuhu khudbadda madaxweyne Farmaajo ayaa si aad looga dhadhasan karay ahmiyadda ay u leedahay dawladda amniga waxaana ay ahayd maalmo ka hor markii wasaaradda gaashaandhigga uu kula kulmay saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo uu kala hadlay arrimo quseeya amniga iyo dib u xoreynta dalka Cali Baashi Cabdullaahi warbaahinta qaranka xarunta tababarka booliiska ee Kaahiye